السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أمومنا إيو مركلة عاو هدو الله سبحانه وتعالى وكرر للنقضاء وحان وذاقينا أنيميا ذا أنيميا ذا وحياو فربضان أو أنيميا ذا محاكين كرا أنيميا ذا وقضبك كواد عن وذاقينا قضبك اللبات هدو الله سبحانه وتعالى وكرر للنقضاء وحو نقنيا cuntooyinka naga saacidi karo in uu dhiig cuntooyinka qofka ka saacidi karo in uu qofka dhiigiisa kor u kaco oo qofka dhiigiisa in uu soo celiyo ayaan mataqaanaa in caawa aan wadaagayna hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka raali noqdo marka hore waa maxay dhiig yarida waxa weeyaan anemiyadu waa qofka oo ay yaraato dhiigiisa ay yaraato ama blood cellka oo qofka uu leeyahay in ay yaraato ayaa waxa loo yaqaanaa anemia haddaba anemiyada waxyaabo badan keeni kara cudurro kala duwan keeni kara cudurro qofka ku dhacay ahaana way ugu imaan kartaa qaabka uu qofka cuntada u cuno oo qaldanna way u imaan kartaa qofkii oo aan helin cuntooyin loogu talagalay in ay caafimaadkiisa kor u qaadaan dhiiggiisa kor u qaadaan all over caafimaadkiisa guud oo dhan aan ka shaqaynin way keentaa iyadana mataqaanaa dhiig yarida waxyaabaha kale oo dhiig yarida keeni kara ayaa waxaa ka mid ah in qofkii uusan asagii oo cunaya fruit iyo vegetables iyo hadii mararka qaarkood ba xataa daawooyinka dhaqaatiirta ay u soo qoraan asagoo cunayo haddana inuusan ruuxi dhiigiisa u soo noqonin sababta uusan marka ruuxaasi dhiigiisa uusan u soo noqonaynin dhaqso ayaa waxay tahay in qofka calooshiisii ama ay fadhido calooshiisii aysan u shaqaynaynin sidii loogu talagalay sababtoo ah marka uu qofka cuno cuntooyin siinaya vitamins iyo minerals siinaya marka uu cuno oo cuntooyin nutritionkooda uu fiican yahay marka uu qofka uu cuno wuxuu u baahan yahay waxaa jirta in lagala soo baxo cuntadii inay dheef shiidmato marka cuntadii ay shiidmato ayaa qofkii wuxuu kala soo baxayaa beeryaradii waxay kasoo nadiifinaysaa oo dhiigga ay kasoo nuugaysaa cuntadii uu cunay wayna kala qaybinaysaa oo qaybihii oo jirka wuxuu u kala qaybinayaa inay qaarna uu ruuxi energy u noqdo qaarna in uu u sameeyo new cellska inuu u sameeyo unugyo cusub oo dhiig ah in uu u sameeyo qaarna wuxuu aadayaa maxaa la yiraahdaa saxaradii iyo kaadidii iyo aadayaa marka shaqadaas caloosha ka socotay hadii ay liidato waxa imaanayso cuntadii uu qofka cunay ee fiicnayd ama daawadii xataa uu dhakhtarku u soo qoray ee fiicnayd uu ka heli lahaa in ay dhiigiisa kor u soo qaado ayaa waxay noqonaysaa waste ama waxay noqonaysaa qashin ay noqonaysaa waxay raacaysaa maxaa la yiraahdaa saxaradii iyo kaadidii ay raacaysaa qashin saar ayaa wixii loo soo wada tuuray wixii uu ruuxa cunayna wax mataqaanaa faa'iido ah oo jirkiisa kaga haray ma laha marka in uu ruux walbo isfiiriyo hadii waxa ay soo noqnoqdaan ama wixii ay noqdaan shay mataqaanaa qofkii mar walba ku soo noqonayo laba siyaaboodba wuxuu u baahan yahay inuu ruuxa u fiiriyo midna waa mid maxaa la yiraahdaa xanuunkii systemkii xanuunka oo systemkii qofkii waxa uu dareemayo la daaweynayo oo kaniiniyaasha la siinayo cuntadii loo qoray dhinaca kalena waxa ay tahay root cause-gi maxaa cause gareeyay horta hadduu xanuun cause gareynayo waa in dhiiggiina kor loo soo qaadaa xanuunkiina uu qofkii u daawooyin uu helaa haddii ay calooshii ay cause gareynayso waa inuu qofka calooshiisii u nadiifiyaa oo digestionkiisii mataqaanaa uu ka warqabaa dheefshiidkiisii in ay mataqaanaa cuntadiisii proper ah ay u shiido oo jirkiisii shaqada ka dhexdhacayso uu ogaadaa qaabka ay tahay waxaa kale oo iyadana jirta mar walba waa in uu qofka raacaa talada dhakhtarka waa inuu raacaa sababtoo ah caafimaad ahaan qof iyo qof waa lagu kala duwan yahay qofkan dhiig yar iyo ka dhiig yar waxa laga yaabaa midna inay dhiig yaradiisa ka imaanaysa qaabka uu cuntada u cuno midna inay dhiig yaradiisa ka imaanayso xanuun jirkiisa ku jira marka labadaba waxa kala qaybin kara oo kala saari kara sababta qofkan dhiig yarada ay u hayso waxa ay tahay inuu ruuxa ogaado oo dhakhtarkiisa
taladiisa uu qaato daawo haddii loo soo qoro uu daawadiisa sida ay tahay uu u qaato ayaa waxay tahay muhiim. waxaa kaloo iyadana isla markaas muhiim ah hadduu u baahan yahay qofka in dhiig lagu shubo oo xaddi uu dhakhtarka uu leeyahay ruuxaasi wuxuu u baahan yahay in dhiig lagu shubo macnaheedu waxa weeyaan ruuxan riskigiisa ayaa sareeyo marka wuxuu u baahan yahay si degdeg ah cuntona ma soo kabi karto daawona isla markaas ma soo kabi karto waa in mataqaana uu helaa in dhiig lagu shubo haddii uu u baahan yahay iron in lagu shubo saasoo kaleeto in ironka lagu shubo oo qofkii mar walba uu qaato talada dhakhtarka marxaladda uu taagan yahay isagoo weliba ka fiirsanayo joyceska uu leeyahay inuu dhakhtarka weydiin karo ma soo qaadi karaa dhiigayga ma ku soo qaadi karaa inaan daawooyinkan aan cuno inaan cuntada aan cunayo inaan hagaajiyo dhiigayga ma ku soo qaadi karaa mise waa wax emergency ah oo u baahan in mataqaana isla markaas qofka dhiiga lagu shubo marka siyaabo kala duwan baa go'aan looga qaadan karaa oo dhakhtarka iyo qofka is hortaagan ay go'aan buuxa ooga qaadan karaan sida uu qofkaasi uu ku heli lahaa maxaa la yiraahdaa dhiiga uu ku heli lahaa jirkiisana uu dhaqso ugu shaqeyn lahaa qaybtaasi waa qaybtii koowaad oo kormar noo ahayd anemiyada waxa ay tahay iyo meelaha ay ka imaan karto iyo qaabkii uu qofka mataqaana uu u fiirin lahaa marka lagu dhaho anemia ku hayso qaybta labaad allahumma salli calaa maxamed ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale sababta oo ah mar walbana ilaahay baa mahad iskale ilaahay wuxuu na siiyey qudaar iyo mataqaanaa iyo fruits kala duwan oo mid walba uu qofka uu ka heli karo maxaa la yiraahdaa in dhiiggiisa ay kor ay usoo qaado haddaba waxyaabaha qofka dhiiggiisa kor usoo qaadi kara ayaa waxaa ka mid ah squashka ama bocorada kala duwan ayaa ka mid ah oranjiga gudahooda uu yahay dhiigga aad ayay usoo qaadaan maasha allah tabaaraka allah waxaa kale oo iyadana mataqaanaa waxyaabaha dhiigga aadka usoo qaadi kara ayaa ka mid ah green leaveska qudaarta greenka ah ayaa mataqaanaa iyadana soo qaadi karta dhiigga kor usoo qaadi karta oo u sameyn karta qofka dhaqso inuu helo muddo degdeg ah inuu qofka jirkiisii uu create gareeyo new cells inuu qofka jirkiisii uu create gareeyo waxaa kale oo uu qofka uu u baahan yahay in uu helo dhinacii protein levelka inuu helo oo dhinacaasna mataqaanaa weliba ironkiisii iyo uu ka helayo sida haddii la helayo maasha allah tabaaraka allah walaalaha reer Soomaaliya waa arrin mataqaanaa Soomaalida si caam ah u naqaano xagga ironka marka aan raadinayno in mataqaanaa goat liver ama mataqaanaa qofka uu helo beerka in uu helo xoolaha oo xayawaanka اللهم صل على محمد إنه قفك هلو beer inuu helo aad iyo aad bay ugu fiican tahay oo waa rich of iron waxaa kale oo qofka uu ka heli karaa fishka uu ka heli karaa chickenka uu ka heli karaa maasha allah tabaaraka allah iyo dhinaca kale isagoo qofka qaadanaya fruitkii iyo vegetablekii waxaa kale oo saacido oo dhaqso waxyaabaha saacida ka mid ah vitamin C da haddii uu qofka uu qaadanayo vitamin C oo ah mataqaanaa daawo ah haddii uu qaadanayo iyo haddii uu qaadanayo vitamin C oo ah liin ah haddii uu qofka uu qaadanayo marka liintaas waxay sameynaysaa in ay mataqaanaa saacido inuu jirkii uu dhaqso mataqaanaa uu soo saaro marka cuntooyinkan uu cuno iyo liintiiba maasha allah tabaaraka allah in qofkii uu helo dhiiggiisii uu kor u soo baxo cajalka ku xiga ama youtube-ka ku xiga hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka raali noqdo ayaa waxaan kusoo qaadan doonaa siyaabaha uu qofka cuntada uu isu raacin karo ma aha sawiradan sawiro aan iska soo saaray ma aha laakiin sawiradan mid walba xigmad weyn ayuu mataqaanaa xambaarsan yahay qaybihii siduu qofkii uu u arki lahaa visually greenka mumuna ay sheegaysa waa kee marka waa kuwa caan ah oo aan wada naqaano haddana mataqaanaa qaybahoodii inuu mataqaanaa qofkii
ciladaas lahaa uu ka faa'iideysan karo oo u qaadan kara hadba timidii mataqaanaa available u ah oo uu heli karo ayay muhiimadeeda ay tahay inuu qofkii mataqaanaa u qaato wa imaa aas recipe ahaan siyaabo fudfudud oo qofkii uu ku qaadan karo ama uu isu raacin karo smoothie-yaashii uu isu raacin karo oo haddii uu smoothie ahaan uu u qaadanayo maxaa la yiraahdaa fruitskii iyo vegetable-kii uu u qaadanayo maasha allah tabaarakallah waxaa aad kasii raaci kartaa oo aad ka heli kartaa waxaa jira YouTube videos ka horeeyay kan oo isagana mataqaanaa multivitaminkii iyo mataqaanaa maasha allah tabaarakallah iyo qaabkii uu qofka u samaysan lahaa smoothie-yaasha ka saacidaya ayaa mataqaanaa ayadana noo saaran oo jirto marka allahumma salli calaa maxamed caafimaadka aad iyo aad uu muhiim u yahay marka waxaana muhiim ah inta aad caafimaad qabto inaad caafimaadkaaga hagaajiso inta aad caafimaad qabto in aad caafimaadkaaga hagaajiso ayaa aad iyo aad muhiim u ah marka aad xanuunsato in aadan kaliya in aadan xasuusanin caafimaadkaaga ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale walaalaha dhammaan intiina caafimaadka qabta waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala aniga iyo idinkaba rabbi caafimaadka hanoo wada saa'idiyo walaalaheena xanuunsan ilaahay subxaanahu watacaala waxaan u weydiinaynaa inuu allah subxaanahu watacaala galaas biyana allah ka dhigay wax allaale iyo waxa ay qaataan in uu rabbi uu ku caafiyo allahumma salli calaa maxamed haddii arrimaha aan kasoo hadlay maasha allah tabaarakallah waxaad iga soo siin kartaa comment ayaa iga soo siin kartaa haddaa wax su-aal aad ka qabto biidnillaahi baari su-aalaha aad ka qabtaan kusoo type gareeya commentiga biidnillaahi baari oo aad wixii su-aalaho aa iga weydiineysaan ama wixii fakar aho aa igu saa'idineysaan oo aa leedihiin umumunay how about this oo maxaa arrintaas laga samayn karaa oo kale oo ku saabsan mataqaanaa cuntooyinka nutritionka ah maasha allah tabaarakallah sababtoo ah caafimaadkeena aad iyo aad u muhiim noogu yahay waxaa laga yaabaa wax aan markaas adigana faa'iido kuugu jirto oo su-aal ah oo aa qabtid in mataqaanaa markaa ila sheer garaysid oo aad tiraahid su-aashaasaan umumunay aan kuu qabaa oo kusoo qorto commentiga waxaa laga yaabaa in intaasoo qof oo kale oo qabta oo su-aashaas qabto in ay iyagana mataqaanaa ay ka faa'iideystaan anigana ay mataqaanaa aan su-aashiini aan kasoo jawaabo haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raali noqdo dhammaantiin waxaa idin leeyahay رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.